fiidkii hore habeen Arbaca oo ay khamiis soo galayso May 3 sanadii 2017 waxaa Muqdisho lagu dilay Allah u naxariistay Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda Xasan Cali Kheyre waxa uu u geeriyooday xabad qura oo kaga dustay muraayadda hore ee shirka gaarigiisa raaxada ah iskuna martay afka iyo fadhiga wareegga maskaxdiisa qobarada baaray bilowga kiiskan iyo garsoorayaashii gooyo xukunka dilka ah ayaa rumaysan in si ku talagal ah oo xirfadi la jirto uu u dilay wasiir Cabbaas dable xooga dalka Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid oo saarnaa gaari uu ilaalo gaar ah uga ahaa hanti dhowrihii xilligaasi Nuur Faarax Jimcaale qiyaas laba gaari oo mar ka soo wada gudbay mid ka mid ah xeendaabyada sida weyn loo ilaaliyo ee madaxtooyada qaranka oo qofka iyo gaariga maraahi lagu sii daayo hubin la isla ogol yahay in lagu dilo wasiir waxay ahayd argagax iyo xaalad abuurtay inaysan Soomaaliya ka jirin goob isku haleen amni ay ka jirto marba haddii ay qayla ka yeertay afaafka hore ee madaxtooyada gacmaha sharci ee looga fadhiyay ka garsooridda dhacdadan gilgishay dalka ay ahayd maxkamadda ciidamada waxaana xukunkii ugu horeeyay ee dilka ahaa uu ku dhacay Caydiid Juun 19 2017 garsoorka ayaa xilligaasi fasaxay Cusmaan Salaad Barre oo lala xiray Caydiid laakiin aan loo haynin wax dambi ah bishii xigtay xukunkiisa bartamaheedii ayuu dalbaday rafcaan laakiin maxkamadda sare oo ku qanacday dhammaan habraacyadii hore ee maxkamadda darajada koowaad ayaa ku raacday xukunka dilka ah 29 Juulaayo 2017 haddaba kuma waxa wasiir Siraaji Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji waxa uu ku dhashay afmadow Jubbada Hoose 1985 waxay sareerkiisa ula qaxeen xerada qaxootiga ah ee Dadaab ee waqooyi bari Kenya bilowga foodadii dalka kadib 1990 waxbarashadiisa asaasiga ah xagga diiniga iyo maadiga waxa uu ku bartay isla xeradaasi qaxootiga ah waxa uu waxbarashadiisa sare ku qaatay jaamacadda Moi ee magaalada Nairobi waxa uu soo noqday gudoomiye jaamacadeed oo hoggaanka u qabtay in ka badan 40,000 oo arday 2011 ayuu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu la shaqeeyay hay'adaha qaramada midoobay ee gargaarka u qaabilsan sida WFP iyo FAO November 2016 ayuu noqday xildhibaan laga soo doortay magaalada Kismaayo waxa uu ahaa wasiirkii ugu yaraa xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shakhsiyadiisa waxa ay ku suntaneed inta astaamo qof wanaagsan uu yeelan karo ka badan waxa uu lahaa riyooyin uu ugu adeego dadkiisa iyo dalkiisa laakiin waxa uu nolosha u waayay xabad uu ku riday Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid 5 sano iyo dheeraad kadib maanta ayaa laga oofiyay xadkii qasaasta ahaa waxaana lagu joogtay fagaaraha xerada General Gordon sida xeer ilaaliye ku-xigeenka ciidamada Maxamed Cabdullaahi Khaliif uu dilka kadib warbaahinta u sheegay degmada waa bari gaar ahaan inta u dhaxaysa Hotel Siyaad iyo masjidka Isbaaysiga waxayna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji taariikhdu markay ahayd 19 bishii 6 2017 xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 13 bishii 7 2017 waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay rafcaan laha dil toogasho taariikhdu markay ahayd 29 bishii 7 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bishii 10 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq waxaa fulinta xukunkan goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha heerarka maxkamadda ciidamada gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute iyo General Liibaan Cali Yarow